daawadayaal halkani waa VOS News xaruntiisa guud oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray amintan hawada idin soo marin jirnay waxaan idinka haynay deegaanada Soomaaliya degtay caalamka intiisa kaleba warka waxa uu diyaar isla markaas idin socodsiin doonta hadii Ibraali ka noqdo anigoo Suuban Maxamed Jaamac Bootaan qodobada nu idin hayno kuwa ugu door koronayna waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo safiirka u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliya dalka Ingiriiska ayaa kulan ku yeeshay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ardayda jaamacadda Golis oo deeq dhar ah gaarsiiyay darbi jiifka magaalada Hargeysa daawadayaal kuwaasi waxay aan qodobada idin hayno kuwa ugu door kornaamkii haatan ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo fadhiya dalka Ingiriiska oo kulan ku yeeshay qasriga madaxtooyada Soomaaliland warsaxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland 16 bishii koowaad 2020 oo soo gaaray xarunta warqabadka ee VOS News ayaa waxa uu dhignaa sidatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska oo qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Bin kulankan waxa laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga soo jireenka ah ee labada dal ka dhaxeeyay iyo arrimo la xiriira dhinacyada amniga mandaqada Geeska Afrika kobcinta iyo kor u qaadida waxbarashada sidoo kale waxa kulankaasi lagu lafaguray arrimaha doorashooyinka dalka waxaan madaxweynuhu safiirkii iyo wafdigii uu hogaaminayay uga mahadnaqay xiriirkii wada shaqeyneed ee labada dal ka dhaxeeyay iyo sidii loo sii loona xoojin lahaa xiriirkaasi dhinaciisa safiirku waxa uu sheegay in ay dawlad ahaan mar walba diyaar u yihiin wada shaqeynta labada dal in la xoojiyo lagana wada socdo wixii hadba ku soo kordha mandaqada Geeska Afrika Suuban Maxamed Jaamac Bootaan VOS News Hargeysa ardayda jaamacadda Golis ayaa deeq dhar ah gaarsiiyay darbi jiifka magaalada Hargeysa sida uu faahfaahinta warkaasi noogu hayo wariye Cabdikariin Isteji ardayda wax ka barata jaamacadda Golis University ee magaalada Hargeysa gaar ahaan ardayda dhigta kulliyadda arrimaha bulshada ayaa walaalahooda tabaalaysan ee darbi jiifta ay kuna dhaqan caasimadda Soomaaliland Hargeysa gaarsiiyay deeq dhar oo ay ugu tala galeen in ay ka xidhaan dhaxanta iyadoo waliba muddooyinkii ugu dambeeyay dhaxan aad u daran ay ka dhacaysay gudaha caasimadda Soomaaliland Hargeysa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadashay mid ka mid ah ardayda jaamacadda Golis gaar ahaan ardaydii iyagu deeqdaasi gaarsiiyay waxaana hadaladeedii ka mid ahaa سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كوباتك الله سبحانه وتعالى وبحمد سكله نجرسيه مان هدف لذا أن ما تسوقني حسب الشر وحان الله يبارك مركب كوبات مدعينيا مركب حتى وحنا مدعينيا دمان أرضي تيم كذا قرط بدل القاية ممكن إنسان كله وقيب قاتي هوش وقرعات مركب من مسلمين حضيين bulshada waxayna ka saareen aad u fara badan imika qofka caafimaadka baranaya ee caafimaadka dhiganaya wuxuu daweynayaa bogta qofkii xanuunsan laakiin inagu waxaynu daweynaynaa inaynu garanaa waa muhiim waana qasab waxaynu daweynaynaa dad qalbiyadooda dadka bulshadii baynu shaqaynaa inaan la dareen noqono oo la dhiibno oo wuxuu taga caruurta jiifta haddii dadka dhimirka xanuunsan inaan la dareen noqono waa qasab waa muhiim وعرور تباليسن وعروسك تنفسك دولة كلية إن لو أنا معقول هرت معها إنه ولا فكر بينك ولا مسكح بينك هدي أيمان في الدولة دي إنه جيب عن وحي ولا شر قرنا ونوحي سكوا ولا قام كل يوحي وحرجين إني مرسري هدف سري مرسري قاري أقدر متوجه الناس وحنا كم حد علينا يا تذكر سلم مسكين ميسان كلنا قرأت على هذا سين كيبل تهاي هدي أي شركة الدالة إيرلاين تهاي dadkii kale aan hormarineen ugu hay'ad ugu tagineen caga hay'ad ugu tagineen guryahooda iyo maxay tolid bakharadooda iyo dukaamadooda ugu tagineen maanta way arkayaan inaan anagu aanan qaadan aan ku daweynay dadkeena tabaalaysan ee aad ku hooseeya aan ku daweynay si fiican bay u arkayaan waxaan rajaynayaa insha Allah biidnillaahi kariim inayna tii ugu horeysay ayna noo noqon waxaan rajaynayaa inaan ka ciyaari doono gool aad iyo aad u qurux badan oon gaarsiin doono ilaa fikirkii iyo maskaxdii aan ardaydaasi soo saareen ilaa gobolada dalka inaan gaarsiino ayaan ku haweyna insha Allah quluubka ballaadhino weynaysiino insha Allah ilaahay raado geestiisa waxaa isna halkaasi ka hadlay Mukhtaar Nuur Maxamuud madaxa kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Golis University ee magaalada Hargeysa waa garoon ka mid ah garoomada magaalada Hargeysa
waxaan maanta isugu keenay qoladii jiifka ahaa oo aan doonayno inaan kala qayb qaadano maadaama lagu jiro dhaxmihii inaanu ku caawino mustayaal koodhar iyo saraawiil isla markaana ay noqon doonto deeqdii u horreysay aanay noqon doonin deeqdii u dambeysay ee ay ku tabarucaan ardayda kulliyadda social work ee jaamacadda Golis. jaamacaddu waxyaabaha ay dhisto waxaa ka mid ah inay bulshada uga turjumayso arrimaha bulshada sababtoo ah waxaan ay u agaasiman tahay ama u samaysan tahay waa ka turjumidda baahida bulshada. waxyaabaha ugu waaweyn ee aan doonayno inaan wax ka bedelo waxaa ka mid ah xiriirka arrimaha bulshada, dhibaatooyinka haysta arrimaha bulshada inaan wax badan ka qabanno. tusaale ahaan dhalinyartan haddii lagu tabco waxyaabo badan baa waddanka loo hagaagaya, hadday noqoto xaafadahoodii, hadday noqoto naftoodii, iyo hadday noqoto cid kastoo waddanka ku nool cid kastoo adduunka korkiisa ku nool. waxaa ku jira niman badan oo caqli badan, waxaa ku jira niman badan oo tikniik farsamada aad u yaqaana, waxaa ku jira niman badan oo aqoon leh. waxay u baahan yihiin in lala shaqeeyo. saas daraaddeed baan ugu door biday inaan iyaga la shaqeyno, iyadoo ay markoodii horeba wasaaraddu la shaqeynaysay ayaa haddana wasaaraddu noo soo rekomandgareysay inaan qolooyinka la xidhiidhno ama aan la shaqeyno ka kulliyad ahaan. anigoo ku hadlay afka kulliyadda ahna dhiinkii kulliyadda waxaan aad ugu mahadnaqayaa ardayda hawshan ballaaran isku soo duwariday, soo agaasintay, soo ururisay lacagaha ama deeqda meesha ku baxaya ama alaabta la bixinaya ardayda la siinaya dhalinyarta yaryar iyo da'yarta. waxay kulliyaddu aasaasan tahay ama u samaysan tahay ama loo umay inay arrimaha bulshada wax badan ka qabato, hadday noqoto qabyaaladda, hadday noqoto qaadka, hadday noqoto any kind of behavioral studies wax kasta oo soo gelaya. waxaan aad ugu mahadnaqayaa ardayda mar labaad iyo mar saddexaadba iyagoo mar walba ku hamiyaya inay waddanka xaaladda ku jira ee dhalinyarta iyo nolosha bini'aadanimo inay wax ka bedelaan. aad baan idinku mahadnaqayaa. ma noqon doonto deeqdii ugu horreysay, waxay noqon doontaa ma noqon doonto deeqdii ugu dambeysay, waxay noqon doontaa deeqdii ugu horreysay laakiin ma noqon doonto deeqdii ugu dambeysay. aad baad u mahadsantihiin baadiina maxaafadda ardayda aad bay u mahadsan yihiin, dhalinyarta yaryarkooda aad bay u mahadsan yihiin. waxaana rajaynayaa inay ka faa'iidaysan doonaan agabka la siiyo. waxaan kusoo dhaweynayaa agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska, agaasimaha Cawaale. waxaasna deeqdan kana guddoomay soona dhaweeyey xuseen maandela afhayeenka guud ee darbajiifta Somaliland, sida ay isu soo xilqaameen hoostana ka xariiqay inay ardayda jaamacadaha kala duwan ee dalku hoos u eegaan walaalahooda tabaalaysan ee ku dhaqan caasimadda Somaliland Hargeysa, iyadoo oo aan haysan buu weliba yidhi hooy. waad bilaabi kartaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا ardayda jaamacadda Golis dhammaantood iyo kulliyadaha jaamacadda. waxaan salaamayaa oo kale gudoomiyaha Golis iyo gudoomiyaha jaamacadda dhammaan kulliyadaha. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo salaamayaa ardayda dhammaantood jaamacadaha Hargeysa oo dhan dadka leeyahay ku salaamayo salaamta islaamka assalaamu calaykum. intaa kadib waxaan leeyahay maanta waa maalin qaali weyn, waa maalin xasuusa, waa maalin alla ka cabsiga iyo iimaanka. maanta ajarka iyo saxanaadka Rabbiga subxaanahu wa tacaala qof walba islaam uu leeyahay. marka maanta ardaydii ugu horeeyey keenta dar iyo bustayaal iyo buqiyaal ayaa hadda nala jooga. ilaahay waxaan uga baryaynaa mid khayr qabta saxanaadka mid khayr qabta Allah ugu bedelo. waxaan ilaahay uga baryaynaa mid khayr qabta ilaahay ha ugu bedelo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarka maanta iyo saxanaadka iyo farxadda ay meel dhigeen ilaahay mid khayr qabta Allah inoogu bedelo. ardayda jaamacadda iyo mas'uuliyiinta Golis oo dhanna ee jaamacaddana waxaan ilaahay uga baryay mid khayr qabto farxad badan inuu ilaahay ugu bedelo. annagana dhammaanteeda ilaahayna soo hadeeyay, qulubtayada qulub diineed ku abuuro. dhammaanteeda waxaan ilaahay ka baryaynaa, waan isku duubanahay dhammaanteedu. waxaan jecelnahay in noloshaydu ay noqoto mid dhamaystiran oo aan ardayda laftigoogu waxa weeyaan maanta oo kaliya maahay waxaan yiraahdeen mar walba way soconaysaa hawshu. ilaahay waa niga mahad celinaya haddana ayaa fayeenka darbijiifka mahad alle
taas intaa kadib baan leeyahay bahda ku sii dheeraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntiisna waxaa soo afmeeray mas-uul ka socday wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أدى شرفت بدن جامعة الكوليس طبعا قيمتها هذيك الماء بالشدة معلمين تودا يدين كودا محمد نيرتها قرحت بدن كل عروتين جد يعني إن لا تشوفته ميريها إذا ما عندك لو كنت شفته لما تعرف السلام عليكم هورتا وحبا وقت بدن با inay bulshadu inala ogaato in carruurtii waddanku intii helaysay xalay meel ay seexato ciddii heli weyday xalay meel ay seexato inay saaka u dambato oo isla carruurtooduna hadday taasabaan ahayn ahbadee waxaan wax loo dhigaaba aanay jirin jaamacadda golis awooddeeda iyo ka go'naanshaheeda in arrimaha bulshada ka shaqaysaa oo waxaan u wasaaradahaan ka dhegsanay dabcan waxaan naga go'an inaanu garab istaagno inaanu u hiilino inaanu ku dhiirigelino inay sii wadaan in aanay halkaa kaga hadhin taas horta way naga go'antay ta labaad waxaan kalena halkan uga faa'iidaysanayaa jaamacadaha dalka dhammaantood wax yar mooyaane adeega waxaana social work way bixiyaan oo doorka arrimaha bulshada way jiraan ama jaamacadda Hargeysa noqoto amba alfaha noqoto amba halka dadka noqoto waxaan codsanayaa in ay waxoodii lagu baray aqoontii la baray ay u bedelaan qaab practical qaabka ardayda jaamacadda halkan waxaa agteeda xaqiiqa dambe jooga badnaan carruurtii darbiyada xalaysay dhammaantood maanta waxaa la siinayaa koodhar iyo funaanado iyo bustayaal iyo xalaal loo karayo waa wax lagu farxo oo wax lagu dhiirigeliyo qodobka ugu muhiimsan meesha waxa weeyaan wasaaraddu iyo xafiiska anagu aan ka tirsanay arrimaha bulshada waxaa ka go'an in cid kasta oo wax qabanaysa oo doonaysa la qabato dadkooda baahan arrimaha bulshada inay diyaar u tahay wax la qabato waanan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol ilaa wasiirka ilaa gaasimaadkooda ilaa aniga ilaa ciddii la shaqayso dhamay in dhalinyartii jaamacaduhu ay u soo jeesteen in arrimahoodii bulshada iyo aqoonta ay badanayeen inay daadejiyaan taasina waa keenaysa inaanu garab istaagno oo wax kasta aan la qaban karayno inaanu la qabanno ilaahay miisaanka xasanaadka hayd ku daro waxaa kaloo halkan uga faa'iidaysanaya dadkii ka soo qayb qaatay inay ardaydan maanta qaybintan halkan ay ku qaybiyaan dharka inay taakulada ka soo geystaan waxaan leenahay halkii aad ka soo saartay ilaahay bedel khayr qabayd ka bedel waxaana idiin sheegayaa inaad ka sii kordhisaan oo isku daydaan idinka laftiin maadaama ganacsato tihiin shirkada tihiin cidka shakhsiyadda dadka tihiin inaad sii kordhisaan inaad ka sii shaqaysaan arrimahan lagu adeegayo carruurteena kani waa ilmihii beritole wax kasban ilaahay baa og dalku maamuli doonaa ganacsado weyn buu noqon karaa wax kasta uu noqon karaa maanta haddii waqtigu uu hayo macnihiisu maaha weyn ka tegina laakiin waan garab istaagina anaguna intaanu joogno waxaan ku dadaalnaa in wixii aan garab istaagi karno aan garab istaagno ardayda golis mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaahay xasanaadkaad samayseen iyo wanaagaad samayseen ajarkeeda iyo khayrkeeda oo balaalaha idin siiyo oo mustaqbal ifaya ha idin siiyo halkaa ka sii wada wanaga markii idinku horeysay maaha anuu idkuma cusubeen anagu waxaad qabataan maalin walba xataa xafiiskaad ku timaadaan waana wada shaqaynaa inaad halkaa ka sii wadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdikariin ciise cabdullaahi cabdikariin staji warbaahinta madaxa bannaan VOS News magaalada Hargeysa. xukuumadda Soomaaliland war ka soo saartay 6 nin oo shalay la qisaasay sida faafaynta warkaasi noogu hayo wariye Caawil Burcaawi. xukuumadda Soomaaliland ee hogaamiyay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa war ka soo saartay dilka ay shalay ciidamada qaranku ku fuliyeen 6 nin oo maxaabiis ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay sababaha ka dambeeyay dilka 6daasi maxbuus iyo magacyadooda qoraalka ay xeer ilaalinta ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in dilalkii ay hore u geysteen 6daasi nin shalay lagu toogtay xabsiga Mandheera iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda sare waxa ay maalintii shalay ay bishii ku beegneed 15 bishii koobaad 2020 saacadu markay ahayd 7:45 aroornimo waxa dil toogasho lagu fuliyay gacan ku dhiglayaasha hoos ku xugsan lambarkow Axmed Ibraahim Faarax ina Aamina Maxamed kaasoo loo qisaasay dilkii uu geystay askari booliis oo lagu magacaabi jiray marxuum Cabdi Saleebaan
laba xasan maxamuud cismaan ina shukri yuusuf kaasoo loo qisaasay dilkii u geystay marxuum ismaaciil faarax maxamed lambar sad khadar aleeli xirsi ina maryamo cumar kaasoo loo qisaasay dilkii u geystay marxuum siyaad cabdi maxamuud farxaan maxamed xasan ina khadiijo khaliil kaasoo loo qisaasay dilkii u geystay marxuum ibraahim aadan muuse lambar shan caydaruus qadar haybe ina shamaad careef kaasoo loo qisaasay dilkii u geystay marxuum idris daa'uud jaamac lambar lix cabdilaahi ismaaciil xayd ina faadumo cali kaasoo loo qisaasay dilkii u geystay marxuum garaad aadan maxamed ayaa lagu yidhi qoraalkan ay soo saartay xeer ilaalinta guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan وعاول عبد الرحيم كيسا عاول برعاو warbaahinta madaxa bannaan ee VOS News magaalada Hargeysa daawadayaal wararkan soo gaarayna waxa kamid ah xafladan oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Gulis ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u badan macallimiin arday iyo xubno ka tirsan dawladda xafladan ayaa daarnay sabuutin iyo soo dhaweyn laba macallimiin waxaana halkaasi ka hadlay Dr. Axmed Cabdilaahi Cige oo ah xogeyaha xisbiga wadani ee xanaanada xoolaha sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Ismaan Shiine oo ah la taliyaha gaarka ah ee wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxaana hadalada mas'uuliyiintaasi kamid ahaa dhammaantiin waan idin wada mahadnaqayaa waxaan aad ka soo qayb gasheen labada macallin ee isbedelaya mooge waa lagu dheeraaday firfircoonidiisa iyo waxqabadkiisa iyo waxaas oo dhan marka anigu waxba ka daba tegi maayo isla saaxiibkiisa kale bedelayaana waa sidoo kale oo gabayadii iyo wixii waynu ku maqlaynayo waa lagu daray xafladda lafteedana waxa ay ku saabsan tahay baa laga hadlaayay wax lama dhaafiyo waan soo koobi anigu ninkii iga weynaa waa kii tagay Axmed Jirdo oo intiina kale aniga u wada weyn aniguna imika Gulis arday baan ka ahay oo in badan oo igaraysa jirta marka waxa la yiri xoghayaha xisbiga wadani ee xanaanada xoolaha ka hadli maayo caawa siyaasad waayo dadkii siyaasadda ma tihidin waxa tihiin arday macallinkoodii sabootiyeysa wax walibana sida ay yihiin lama dhaafiye halkeedun baa la dhigaa waxaaseen idiin geli doonaa mowduuca aynu nahay dhammaanteen veterinariga la yidhaahdo ama xanaanada xoolaha la yidhaahdo iyo kalluumaysiga isku daro taasaan in yar ka odhanayaa inta yareen taa ka odhanayaa waxa weeyaan qofku marka uu baranayo waxa uu baranayaa in wax wanaagsan noqdo ayuu had iyo goor rajaynayaa ama uu ku tala galaa maadadaha cilmiguna markay kala baydhbaydhaanay kan injineer noqday kan veterinary noqday kan dhakhtar dad noqday kan mid waliba sii kala baxaan qolo waliba haddana waxay doonaysaa inay qaybtaa iyagu ay galeen cilmiga ahi ay horumar wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo ay yeelato weeye waddankeena marka hoos loo eego lafdhabartiisa dhaqaaluhu waa xoolaha weeye qofka xoolaha bartaana waxa weeyaan inuu noqdo lafdhabarta shaqaalaha doctorku qalliin bisaaska uu ku fuliyay run ahaantii waxyaabaha ay kuwa fara badan baa uu isqabtay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa mar kastana waxaan jecelahay runtii oon ka sii codsanayaa waliba doctore ha naga tegin nala joog waqtiyada qaarkoodna soo booqaad firaaqada leedahay aad iyo aad baan kugu baahannahay halkaa tagtayna waxaan filaynaa sidaa ila iskoo kale inaad u mari doonto aad wax badan kaga hilaacin doonto sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay labadii dhiin ee xilkaasi la kala wareegayay dhiinkii hore agroveterinariga Dr. Cabdikariin Cusmaan Mooge iyo dhiinka cusub ee Dr. Cabdixakiin Axmed Ismaaciil bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna waxaa mahad iska leh ardayda marti sharafta maamulinta macallimiinta intaasoo dhan mahad bay leeyihiin kolley caawa oo dhan waan fadhiyo wixii hawla socday waa u jeeday saaxiibka jibriilna waa aroos buu yidhi mooga caawa marka la islaamaya salaanka bacdi waxaan u mahadnaqayaa allah subxaana wa tacaala lagu kulmiya maanta xafladan quruxda badan marka isagaa mahadda guudla waxaan kaloo si gaara u mahadnaqayaa
dhammaan ardayda kasoo shaqaysay waqtiga gebagabadii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey labadii mas-uul ee xilkaasi la kala wareegayay shahaado sharaf iyadoo ilaahay looga bariyey inuu ilaahay xilkaasi ku asturo dhinkii cusbaa ee dhaktar cabdixakiin axmed ismaaciil sadaam xuseen hurre warbaahinta madaxa bannaan ee VOS News magaalada Hargeysa. dowladda Uganda oo sheegtay in askarta howlgabka ay u soo diri doonto Soomaaliya sidoo faahfaahinta warkaasi noogu hayo wariye Nuruddin Cali Daahir. Arbacadii shalay ayay ahayd taliska militariga ciidamada Uganda ay dib isugu yeedheen 2752 ka mid ah askarta howlgabka ah ee dalkaasi si ay uga mid noqdaan howlgalka midowga Afrika ee muddada ka badan 10 sano ka socda Soomaaliya. Taliyaha ciidamada kaydka Uganda Carles Otema ayaa cutubyada howlgabka ah ee loo dirayo Soomaaliya ku amray inay ugu dambeyn ku soo xaroodaan usbuuca soo socda kadib qoraal uu soo saaray. Sida uu sheegay Carlos Otema, ciidamadan loo dirayo Soomaaliya ayaa waxa ay ku kala biiri doonaan guutooyinka 31 iyo 32 ee howlgabka Afrika ee Soomaaliya ka socda. Nuruddin Cali Gabyaaye, warbaahinta madaxa bannaan ee VOS News magaalada Hargeysa. daawadayaal intaas waxayna ugu soo dhamaaday war waxaan idinka haynay deegaanada Soomaaliya degtiya caalamka intiisa kaleba warku wixii idinkaga imanayay muqbaahiyaha xorta ee VOS News xaruntiisa ku leeyahay magaalada Hargeysa. warka waxa uu diyaaray isla markaasina idin socodsiinayay anigoo ah Suuban Maxamed Jaamac Bootan. intaanu warkan war la mid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo amaana alle.